waxaa si wada jir ah ugu sameeyay ururka Today iyo sidoo kale shirkadda Nasiye oo runtii u taagan horumarinta isboortiska gudaha dalka iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay halyeey ka tirsan ciyaaraha dalkeena qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Nasiye iyo Today iyo sidoo kale ciyaartoy qaran oo iyaguna markana qayb ka ah kuwa garoomada ka ciyaara xilligan. Mas'uuliyiinta qaar ayaa ka hadlay iyagoo markan soo dhaweeyay Cabdi Axmed oo markan ahaa saaxiibkoodii sidoo kalena ay ku soo dhaweeyeen magaalada tan caasimadda ee Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta iyo maalin kaleeto soo dhaweynta walaalkeen ama gudoomiye Cabdi Axmed aan ugu sameynayno garoonka beerta nabadda ee degmada Xamarweyne. Runtii soo dhaweyntan waxaa mas'uuliyadeeda iska leh ama isku xilqaamay ururka Somali Today iyo sidoo kale barnaamijka Nasiye oo iska kaashaday soo dhaweyntiisa. Cabdi Axmed muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ka maqnaa dalka waxaan u maqnaa arrimo la xiriiro horumarinta sportska oo jira dalkaas iyo London iyo eridaas Europe. hadda maanta uu ku soo laabtay Cabdi Axmed oo magaalada Muqdisho soo laabtana waa inuu saameyntiisa iyo akhbaaraadkiisa wataa. waxaan aad u rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in maanta aysan noqonin maalintii ugu horreeyay meelo badan oo magaalada Muqdisho ka tirsan lagu soo dhaweyn doonaa. ka aniga ahaan anoo ku hadlaa magaca macallimiinta ama sportska Soomaaliyeed waxaan leeyahay Cabdi Axmed ku soo dhawow dalkaagii. shalana waxay ahayd nin loo baahan yahay maantana waxaa tahay halyeeygi noo soo laabtay. waxaan mar labaad u hambalyeynaa maadaama ay qabaqaabiyeen Nasiye iyo sidoo kale Somali Today idinkan oo ku maasantiin alle maadaama kubadda cagta Soomaaliyeed iyo horumarinta kubadda cagta iyo barnaamijyadeedaba aad ugu dadaasheen. Cabdi Axmed, welcome to Muqdisho mar kale. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waxaan maanta farxad noo ah inaan soo dhaweyno lajanka weyn ee Cabdi Axmed oo ka yimi wadanka UK. runtii muddo badanna Soomaaliya joogay laakiin hadda hawlo shaqo oo sportska ugu baxay wadanka UK. Cabdi Axmed waa halyeey sporti Soomaaliyeed ah oo markii ugu horeysay waxaan isku baranay Stockholm Somali Summer Games ilaa waqtigii aan isbaranay oo hadda laga joogo muddo 12 sano ilaa hadda sportska si ugu dhex jira. waxaana leeyahay Nasiye iyo Somali Today soo dhaweynta Cabdi Axmed u sameeyeen waxay tusaysaa dadaalka iyo maxaa la dhahaa dhiiranaanta aad sportiga u haysaan. marka waxaan leeyahay Cabdi Axmed ku soo dhawow Muqdisho wadankaaga ku soo dhawow sportiga horumarintiisana si ugu sii shaqeeyo. waan salaamaya aniga Cabdisalaam Saalax Xuseen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. galabta waxaan ku suganahay garoonka beerta nabadda oo aan dhammaanteen aan u wada joognaa in aan ku soo dhaweyno walaalkeen Cabdi Axmed oo mar dhow London nooga yimid. Cabdi Axmed oo kamid ah odayaasha ururka Today dhinaca maaragtay London. waxaan rabnaa maanta inaan meeshaan ku soo dhaweyno ciyaartoy wada dhan yihiin ciyaartoy hore odayaashii guddiga maamulka Today Soomaaliya waa la dhan yahay. waxaan leenahay walaalkeen Cabdi soo dhawow magaaladaada waaye tiimkaaga u timid waa ku mahadsan tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.